ma imaqlaysaan codkaygaan raba inaan testigareeyo ma la imaqlaa haddaa imaqashiin fadlan ha lagu soo qoro haddii la imaqlo ma la imaqlaa may maqashaan baarax waa ku salaamaad kolley haye waa mahadsantihiin teleefonkaa jaajar igu jira marka daas waa aan idiin laya ma lay maqlaa kolley videogan waa la sheergarayn doonaa ciddii ma aragtaayey hadduu ilaahay idiin roon yahay kale waa la daawan doonaa intiina hadda ku jirta maahan inaan iska bilaabanaan jecelna horta aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa intiina i daawanaysa iyo intay daawan doontaba meel kastood adduunka dacaladiis kasoo joogtaan laakiin waxaa runtii wax laga xumaada ah dadka walaalaheena ee soomaalida ah ee moodahaya carta waa ku soo qabanayaa moodaya in ma aragtaayey xasuuqan beel keliya ama qolo keliya ama qabiil keliya ay tahay waxaan rabaa inaan idiin sheego xasuuqa orama samaynayso waxay ku hayaan carta mar kale kusoo noqo aan kusoo qabto waxay ku hayaan runtii soomaali oo dhan weeyaan oramo dadka ma kala soocayso laakiin waxaa dhibaato ah xasuuqii ugu horreeyey ee wadar xabaaleedkii dadka loo sameeyey 50 qof waxaan ogeyn inay ahaayeen dad Soomaali ah oo dadkan Soomaalida hadda dadka ay ku tuhmahayaan iyo qabiilka ay ku tuhmahayaan midna aan ahayn Soomaali ah waliba inta dawlad deegaanka u dhalatay dadka lagu tuhmay Soomaali badan dawlad deegaanka degta haba loo kala badnaaday laakiin aysan ahayn ee Soomaalida kale ay ahayd ama Somaliland ka timid ama Boorama ka timid ama meelaha Soomaaliya ka timid Soomaali orama waxay u leeynaysaa Soomaali they don't care about qabiil baysan kala soocaynin dad baysan kala soocaynin ayaga Soomaali waa u Soomaali marka Soomaali ay waxa idin damir xumo ah aniga Muqdisho waa gurigeygii saddexaad waa gurigeygii labaad waa meeshan ku soo koray runtii iyo meel kastaba marka waxaan damir xumo ah runtii anigu aan damir xumo u arkaa iyo dad badan oo kale dadkan masaakiinta ah shacabka ah lagu xusuuqay markaan saaka la hadlay wallahi dhiikar baa igu dhici gaaray dadkan lagu leeyahay waa 80 qof ma aha 80 qof waxaan idin yiri war 300 dadkan kore u dhaafeen la xasuuqay ee masaakiinta intii meel lagu soo ururiyay la yiri waa la idin ilaalinayaa ciidamadii ilaalinayeen ay ka tageen reason baa looga tagay marka waxaan rabaa inaan idin sheego oramo Soomaalinimo u leeynaysa qabiil gooniyana ma raadsanayso dad gooniyana ma raadsanayso qoomiyad gooniyana ma raadsanayso I was wondering waxaan ka yaabanahay waxa weeyaan waxa aad arinta aad uga qayb qaadan laadihiin oo annaga markii xamar Muqdisho ay ka dhacdo dagaal uu ka dhacana aan waxa weeyaan u qiiroono u jidboono oo uga hadalno oo waxaan ku iri qarxiiso waxaan ku iri almost dadka waxaan ku iri everybody kamida qof sorry Soomaali qof aan ka hadlin qaraxaas ma jiro dibta ka dhacda meel kasta qof aan ka hadlin ma jiro ee ay u maleynayaan dadkan Soomaalida la laayay inay reer kilil kaliya yihiin waxa orama ay u socotana ay u moodin inay reer kilil kaliya tiin Soomaali orama ma kala saaraysa mana kala jecla ilaa iyo jigjiga ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo Jubbaland ilaa dhulka Soomaali degto dhan bay orama ma aragtay u dhaarsantahay leedahay annaga iskale waxay ku socdaan xaq darro weeyaan marka anu waxaan idin leeyahay arintan waa inaad ka hadashaan regardless of hadaa Ethiopia ka timid Ethiopia ku dhalatay iyo hadaa xamar ka timid oo ku dhalatay iyo hadaa meel kale Soomaaliya ku dhalatayba
wherever aa ku dhalatay ama haddaa Puntland ku dhalatay ama haddaa galmudug ku dhalatay you name it Soomaali waa un Soomaali aniga shakhsi baan ahay qabiil nacayb iguma jiro waa laga yaabaa waxyaalo qaldan inaan sheego sideedana dad markay wax maartay sameeyaan qabiilkooda un baa loo soo qaadanaya laakiin wallaahi oo billaahi oo tallaahi baan qof Soomaali ah oo dhibaataysan regardless meesha uu joogo haddaan wax u qaban karin jirkayga danqada oo dibaaxsha baan idin sheegi maayo mana isku amaanayo mana isku faaninayo marka we all in one walaalayaal hal baynu nahay qabiiladan iyo gobolkan iyo waxyaalahan aad u jeedaan Soomaali waa wax lagu mashquulinayo oo ayada la isku mashquuliyo runta markaad rabtaan Soomaali waa hal qoys waxa la fahmay Soomaali meeshii ay ka liigaraysay baa la fahmay in ay tahay beel iyo qabiil in loo kala bixiyo si ayagu awoodooda iyo powerkooda uusan isu qabsanin marka anu waxaan garan la'ahay waxa ay Soomaali uga aamusan tahay Facebooka inta aan arkay waa dad yar oo ka hadlaya arrintan dhibaatadan ay Oromadu ku samaysay waxaan leeyahay shacabka dadka masaakiinta ee dumarka iyo caruurta ee la xasuuqay ay ku samaysay ee ay ku sameynayeen waxa weeyaan horeyna cid Soomaali uga hadashay ma arkin few people baa ka hadlay haddana waxa weeyaan cid kale oo ka hadashay dhowr qof baa ka hadashay ana waxaan idin sheegayaa ninka Oromiga ah ee kilka Oromiya madaxweynaha ka ah iyo midka askariga ah ee qoriga haysta Soomaali inay Soomaali u tahay Soomaali inay Soomaali u tahay inaysan idin kala jeclayn inaad ka dhiididaan haddii kala Soomaha maanta haddaad aamustaan because kililka kaliya ka soo jeeda annaguna bari waa aamusayna dhibaatadiina waa ka aamusayna waana ka gaabsanayna leeyahay cadaawad weeyaan waxaas dad Soomaali ah oo aan la kala soocin inaad aamustaan Soomaaliye ya qofkii damiir la waa inuu kaco weeyaan annaga waxa idin qarxinayay Soomaaliya qarxinayay meel kasta ama hadday Boosaaso tahay ama hadday Gaalkacyo tahay ama hadday Xamar tahay ya dhibaatada ka waday waa kuwa Soomaaliya oo magac la baxay oo dadka shacabka aleeyahay macaadallaahi waa dad ayagu raba inay Soomaali dhulkeeda qaataan oo la haba dhulkan annaga iskala dhulkoodi ku filan waay oo boob iyo dagaal iyo dhac u socda oo dadkiini leeyahay baad ka aaminsan tihiin maxaa tihiin maxaa idinku qiyaasnaa macadowgeena tihiin oo ayaga ka darantiin dadkan la leeyahay aniga family iyo ehel iyo midna iguma jir laakiin Soomaalinimo ay damqaysaa aniga waa dad Soomaaliya waa dad walaalaheena waa dad maxaf iyo maxaa la dhahay maati ah maanan anagu Soomaali ahayn war maanan muslim ahayn war maanan bini aadan ahayn way aad oga hadli laadiin arintan oo u fiirsanaysaan Soomaaliye mise waxaad doonaysaan beritoole in idinkana laydin aamuso taas haddaad rabtaan xeerkaad goyseen weeye idinkana waa laydin aamusi beritoole laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego oo aan rabaa inaad ogaataan kolay dadka la dilay qabiiladoodana waa la soo qori doonaa hadday nagu kalifto weeyaan hadday dadku Soomaalida kale ay u haysato inay hal beela ka soo jeedaan dadkaani ya ama hal region ay ka soo jeedaan Soomaali waa u Soomaali Oromo they don't care about it marka anu waxaan idin dhihi lahaa intaad kor isu qaadaan oo damiirkiina kor u qaadaan oo dadnimadiina aad kor u qaadaan show support iyo condemning dadkan waxa ay sameynayaan inaad ka xuntiin Facebookyadiina ku soo post gareey Soomaaliyay isku xishoodo isdaba qabta kontankii qof ee wadar xawaaleedka loo sameeyay Soomaali bay ahaayeen inta 300 hadda la leenahayna waa Soomaali waa caruur iyo hooyooyin iyo rag masaakiin oo aan waxba haysanin familiyaal imagine fakaran idin anigu dib maaragtay u fakara xisaabtamana xumaan iyo cadaawadana anagu idin qabina anaga hana tusina hana noo muujinina
soomaali waa soomaali soomaalina waa mid arrintan ka hadla haddaad ka hadli weydaan soo maaha nin walba hooyay dhihi xuduudaha la leeyahay waan banaynaynaa meeshay ku socotaana waan iska difaacaynaa oramo laakiin xuduudahan u banaynaynaa meeshay ku socota ha aado dad moodaysaan DDS ay kaliya inay oramo u socoto meesha ay u socoto ayaa loo banayn xuduudaha istaagaan idin iriyo maxaa la dhahayay soomaaliyay xumaanta intaad iska daysaan yaa hadduu ilaahay idin roon yahay maxaa la dhahayay waxaan ka yaabanahay dadkan ayaguna isku maqane ayagu isjiidanahay qaarna oo la qaarna DDS qaarna mucaaradka maxaa la dhahayay waxaana la yaa ayaguna dadkii kale iyo Soomaalidii kala ku maqan ayaguna ayaga isku maqan you think dad ayagu isku maqan in idinka ku maqan yihiin ayagii baaba iska badin laaba dadkan aad ku maqantiin marka anigu waxaan idin dhihi lahaa Soomaaliya hal istaago Soomaaliya hal istaago oo waxaan dadkani ay sameynayaan ciidankan oramada ah oramo يعني waxaan ka wada oramo dhan waxba ma wada laynin laakiin inta waxa weeyaan reality-ga wuxuu yahay qaarna waxa weeyaan dibadaha joogaan waxbay uga diraan kulligood ma wada laakiin waxaan ka wadaa dadka ciidamada gudaha ku jira iyo shacabkuba waxa weeyaan waxbay laayaan shacabka intooda badan shacab badan oo fiicanna way ku jiraan laakiin ninka madaxda meesha oo akililka oramiya iyo ciidamadiisa way dadka wax xasuuqay tii la xasuuqay baa god laga buuxiyay dadkii حسبنا الله ونعم الوكيل ولا لا يالو إلهي كعصد dadkana ayaga iska badin loo idinkeedu kuma maqree Soomaalinimo dadka loo leenahay Soomaalinimo u kaco arintan ha looga mudaharaado Facebook-yadiina ku soo qora oo waxaan idin iri sida isu dhaama hadii kale Soomaali waxay tiraadaan ninba waa maalintiisa nin walba maalin bay helaysaa marka aynu isu aamusna marka khayr baan idin rajeynayaa assalaamu calaykum oramo lama xajoonayo Cabdirasaaq waxa weeyaan cid oramo la xajoonaysa ma jirto oramo waxa ay wada hadaysan daynin waa la iska celin gacan birahana lagu qaban wax asxaan oo loo sameynayana ma jirto sababta waaye cid wax ka haysataa ma jirto maanta waa la soo dhaweeyay waa la soo celiyay waa la raali galiyay inta ay dad sheeganayeen 10 jibaarkeed ay hadda laayeen 10 jibaarkeed bay hadda laayeen adduunweynahana waan tusaynaa hadayna dayn waayaanna wallahi gacan biraan iska qabanayna cid baryaysa ma jirto laba daloo darisaynu nahay dal balaarsi bay u socdaan Soomaaliya oo dhan bay u socdaan ma garateen ninka moodaya inay DDS ay ku socoto kaliyo ilaahay idin ma soo gaarsiiyaan annagana nooma keeno laakiin cidaan baryayno annagu ma jirto orama haday walaaltinimada iyo darisnimada ku hari waayaan waa la iska celin gacan birahana la iskaga qaban dal iyo dibadba dad baa ilaahay naga dhigay خير بان دي رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته